warar degdeg ah oo naga soo gaaraya magaalada Jigjiga waxay sheegayaan in halkaasi laga qabanqaabinayo dibadbaxyo ay soo abaabuleen dhalinyaro cadhaysan oo ka cadhaysan xarigii loo geystay madaxweynihii hore ee maamulka Kililka Cabdi Maxamuud Cumar. Dhalinyaradani ayaa waxaa la sheegayaa inay abaabulayaan dibadbax ka dhan ah TV-ga la yiraahdo ESTV oo ah ka kaliya ee ka howlgala deegaanka Soomaali Galbeed xilligan xaadirka ah. Waxay ka bilaabatay baa la leeyahay dhibaatadu kadib markii shalay ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee Kililka magaalooyinka Qabri Dahar, Wardheer, Goday, Dhagax Buur iyo goobo kaleba, kaasoo ay dadweyne isugu soo baxay meelahaasi oo u badnaa dhalinyaro iyo haween ay dalbanayeen in la sii daayo si dhaqso ah Cabdi Maxamuud Cumar. Waxaa jirtay in wariyeyaasha u jooga gobolada ESTV ay muuqaalo ka soo duubeen dhammaan dibadbaxyadaasi dhacay kadibna aysan soo daynin oo aysan suuragelin inay xali warkoodii ahaa ku soo daraan dibadbaxyadaasi. Amar uga yimid dhanka hoggaanka sare ama madaxa TV-ga ayaa lagu joojiyay in dhammaan wararkaasi ku saabsan dibadbaxyada lagu taageeraya Cabdi Maxamuud Cumar aan la sii daynin. Sidaas darteed ESTV warkoodii xalay maysan ku soo darin dibadbaxyadaasi ay ka soo duubeen dhalinyaradaasi. Waxaa la sheegayaa in dhalinyaradaas ay ka xanaaqeen sababta aan loo soo daynin, isla markaasna ay dalbanayaan cadaalad. Ay gadood muujiyeen iyagoo ku andacoonaya in xorriyatul qowlkii lagu baaqay meesha uusan ka muuqanin, iyagana araahdooda ay ahayd in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar la soo daayo, taasna muuqaaladii laga soo duubay aan la soo daynin. Sidaa darteed booliiska waxaa la sheegayaa booliiska magaalada Jigjiga inay xabsiga u taxaabeen Xuseen Axmed Rashiid iyo sidoo kale Fuaad Xaaji Nalka iyo Daahir Sheekh Cali, saddex dhalinyaro ah oo aad u abaabulayay isla markaasina kacdoon ka sameeyay magaalada Jigjiga. sidaasna xabsiga loogu taxaabay oo xalay ay u baryeen xabsiga. Sidoo kale Farxaan Cabdi nin lagu magacaabo oo nala hadlay wuxuu sheegay in maanta ay abaabuli doonaan dibadbaxyo ka dhan ah ESTV kaliya. Waxay wararka ka soo cusboonaada waxaad kala socon doontaan warka 24 oo aad uga barateen warar xaqiiqo ah oo ku saleysan gobolka Soomaali Galbeed iyo xogihiisa ugu dambeeyay, kaasoo siyaasadiisu in dhawaalaba isu bedelayso daqiiqad iyo saacad. khayr badan baa idin rajaynaynaa. Ha ilmaamina inaad subscribe na siisaan, like iyo share noogu dadaashaan. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Yo!